بسم الله الرحمن الرحيم waxaan Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac oo degan deegaanka tuulada Beeye Gulaan oo dhigta jaamacadda dabadeed oo jaamacadaas oo ah Monash University ee dalka Indonesia waxa dhameeyay Bachelor of Degree shahaadadiina waan haystaa waxaanan bilaabay upgrade master oo aan marayo final semester waxaan deganahay tuuladan Beeye Gulaan oo ka tirsan degmada Xagal hoos tagtana gobolka Saaxil Berbera Berberana u jirta 75 km adeega internetka markaan arkay waxaan go'aansaday inaan ka faa'iideysto oo uga faa'iideysto waxbarashadayda uga faa'iideysto inaan iska diiwaan geliyo jaamacad kamid ah jaamacadaha dibadda jaamacadaas waxay ku taalaa dalka Indonesia adeega internetku man ka helay barnaamijyadeeda kadibna waan apply gareeyay horta marka hore anigu shaqadayda waa xoolo dhaqato xoolaha markaan raaco galinka hore galinka dambe waxbarashadeedii ayaan imaada halkaan gurigaan imaada kadibna mobilkaygan furaa internetkan shida kadibna halkaasaan ka akhristaa casharadayda waxbarashada ilaa habeenkii ilaa galabtii kadibna gurigayga in igu dhow ayaan habeenkiina qabtaa mararka qaarkood anigoo mobilkaygana sita arigana la jooga ayaan arka casharadayda ka akhristaa mobilka dhexdiisa kadibna halkaan imaada casharadayda ku akhristaa waqtigu way qaybsan yahay waqtigan saasan time management baan ku sameeyay waqtigayga jaamacadda waxa dhigtaa Faculty of Public Health caafimaadka dadweynaha waa balaaraya waana farbadaya waxa kamid ah kahortagga xanuunada prevention and control disease waxa kamid ah first aid waxa kamid ah hygiene waxaan casharada lagu soo diraa mobilkayga oo ka akhristaa waxaana semesterkii hal mar baa la soo diraa imtixaanka waxa online baa lagu soo dhigaa waa la soo wargeliyaa marka hore tomorrow evening ama tomorrow morning ama tonight ayaa exam weeye ready baan noqdaa kadibna halkan ka jawaabtiisa ka celiya jaamacadda degree u dhamaaday ardaydii aan isku galaaska ahayn dhamaan way upgrading bay doontay master marka master of public health ayaan final semester maraya waxaan diyaarinayaa cilmiga nafaqada iyo kahortagga nafaqa darrada waxaan doonayaa mustaqbalka inaan noqdo dhakhtar ka hawlgala deegaanada miyiga oo aan ay ku adag tahay si ay u helaan adeeg caafimaad oo dhameystiran horta marka hore Ilaahay mahad leh marka labaad waxaan mahad celinaa shirkadda Telesom ee noo suura gelisay adeeggan internetka ee aan isticmaalayno ee aan ugu isticmaalayo waxbarashada ugu isticmaalayo aniga qori kama faa'iideysan adeegga internetka Telesom ee waxa ka faa'iideystay dhammaan bulshooyinka deegaanada oo dhan haday Facebook tahay haday WhatsApp tahay haday Instagram tahay oo program oo dhan dhammaantood dadka deegaanada jooga oo dhan waxay isticmaalayaan adeegga Telesom ee internet aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan codsanaynaa in deegaankan aan deganahay aan wax ku barto ee baadiyaha Beeye Gulaan nalaga sameeyo adeeg caafimaad oo dhameystiran si loo daboolo baahiyaha caafimaad ee deegaanada ka jira